بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما تقانا مسوى ما لا سعوتا وما درeensantahay oo ma ogtahay martida ugu dambeeya الضيف الأخير martida ugu dambaysa ee adduunyada inta aynu joogno ina la kulmay. martidaasi waayo, muxuu qabtaa, muxuu ka shaqeeyaa, hawshiisu maxay tahay, muxuu xil saaran yahay. martidani waa malag ka mid ah malaa'igta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. malaa'igtana sifooyinkooda waxaa ka mid ah inaanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanay caasiin. laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. wax Ilaahay uu faray ma caasiyaan, wixii uu Ilaahay uu faray oo uu idmay oo uu ku yidhi sidaa sameeyna way sameeyaan. malagaas waxaa la dhahaa malakul mawt ama malaga geerida ama dhimashada. magaciisa saxda ahina waa sidaa weeye, waa malakul mawt. walow culimada qaar ay dhahaan Azraa'il baa la dhahaa, laakiin sida saxiixa ah waxaa la dhahaa malakul mawt. malagan alle subxaanahu wa ta'ala wuxuu siiyey awood fara badan. awooddaas oo uu ku dili karo noole fara badan oo adduunyada jooga ama meelo kala duwan jooga. xilliyo kala duwanna hal mar ayuu nafta ka qaadi karaa. wuxuuna awood Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu u siiyey in uu noole fara badan oo meelo kala duwan jooga inuu hal mar nafta uu ka wada qaado. subxaan allah, waa awood Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu malagaa siiyey. shaqadiisuna waxa weeye oo keliya inuu ruuxda uu ka dhex saaro jidhka bani aadamka, inuu ka dhex saaro oo uu ka siibo ruuxdii. isaga shaqadiisu ma aha inuu malaa'igta wax cadaabta ma aha, kuwa wax jannaysana ma aha, kuwa howlaha kala qabtana ma aha. shaqadiisu waxa weeye oo keliya inuu ruuxda ka saaro jidhka bani aadamka. subxaan allah. malaga kan طبعا qisas badan baa laga soo wariyey, waxaynu soo qaadanaynaa insha allahu tacaala inagoo ka warrami doona bal malagan marka uu la kulmayo ruuxa mu'minka ah iyo markuu la kulmayo ruuxa gaalka ah, qaabka uu ula kulmayo iyo dariiqyada iyo jidadka ay kala marayaan. taas insha allahu tacaala mar kaleynu ka warrami doonaa, laakiin waxaynu ka warramaynaa maanta haddii Ilaahay noo idmo qisooyinkii ama taariikhdii iyo dhacdooyinkii dhacay markii malakul mawtku uu la kulmayay dadkii wanaagsanaa, gaar ahaan ambiyadii iyo nebiyadii Ilaahay sala allahu calayhi wasalam. malakul mawt calayhi salaam waxaa la tilmaamaa wuxuu la kulmay sida xadiidkii uu soo warinayay imaamu muslim. nebi aadam calayhi salaam ayuu u yimi oo wuxuu doonayay inuu nafta ka qaado. marka nebi aadamna calayhi salaam markuu jannada joogay rabbiga raxmaanka ahi uu abuuray ee uu unkamay ee uu sameeyey ayaa wuxuu cimrigiisa u qadaray inuu 1000 sannadood u noolaanayo. dabadeedna allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu tusay nebi aadan caruurtiisii ayuu wada tusay oo mashaashad buu ka daawadsiiyey sida tv-ga oo kale. alle subxaanahu wa ta'ala qaybka iyo mustaqbalka waa og yahay. qaabku u tusay garan mayno, laakiin alle subxaanahu wa ta'ala nebi aadan wuxuu daawadsiiyey dhammaan ubadka uu dhalayo oo dhan. kadibna wuxuu arkay nebi aadam calayhi salaam mid ka mid ah ubadkiisii oo dhalaalaya oo nuur iyo iftiin uu ka muuqdo. markaasuu dhahay nebi aadam calayhi salaam, rabbiyo muxuu ahaa wiilkaygaas dhalaalaya ama quruxda badan ee nuuraya ama iftiimay. wuxuu alle ku yidhi subxaana wa ta'ala waa nebi daa'uud. nebi aadanna wuxuu yidhi rabbiyo waa imise da'diisu. wuxuu dhahay marka alle subxaana wa ta'ala cimrigiisa loo qoray waxa weeye 40 sana, 40 sannadood. marka wuxuu dhahay nebi aadam calayhi salaam, rabbiyow
cimrigayga 1000 sannadood ah 60 sannadood uga go oo dabadeedna markaa 100 sano ha dhamaysto oo sidaas markaa yacni cimrigiisa ugu dheereen alle subxaana wa tacaala waa ka yeelay markii ay gaadhay da'dii 940 sannadood markuu ka jaray ayaa malakul mawtkii u yimi oo wuxuu dhahay naftii keen naftii baa laga qaadayaa nebi aadam wuxuu yidhi calayhi salaam mayada cimrigaygiiba dhow 60 sannadood baa ii hadhee subxaana allah waa ilaawey walidaalika baa xadiidku wuxuu leeyahay nebi aadam waa ilaawey waana diiday yacni waa ku adkaaday naftii bani aadamkii carrirtii uu dhalayna sidoo kale iyaguna way halmaameen oo geeri cidda xasuusisa xitaa waxay ka necab yihiin ma jiraan oo geerida iyo xuskeeda iyo waa kan iyo dhimashada ma jecla oo way karaahiyeysanayaan oo way kahanayaan oo way necab yihiin wayna halmaameen oo waa ilaaween sida nebi aadamba calayhi salaam uu ilaaway ee uu halmaamay ugu dambayn alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa nebi aadamna camrigiisii buu siiyo waa u dhammaystiray 1000 sannadood nebi aadamna isagana sidoo kale intiiba loogu daray oo cimri dheerar ayuu alle siiyey subxaanahu wa tacaala ilan isagaa maamula qadarkaba gacantiisa ayuu ku jira cidduu doono ayuu cimrigiisa u kordhinaya cidduu doonana wuu ka yaraynaya ciddii doonana isagoo dhalinyaro ah buu dilayaa cidduu doonana isagoo waayeel ah ayuu dilayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu ka baryaynaa inaynu mar walba kuwa ku dhinta xaqa inuu alla inaga yeelo subxaanahu wa tacaala qiso kale ayaa jirta iyaduna oo imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ba ay soo wariyeen xadiidka caanka ah ee abaa hurayra radia allahu canhu warinayo nebi muuse calayhi salaam ayaa waxa u yimi malakul mawtkii dabadeedna wuxuu ku dhahay nebi muusow yaa kaliima araxmaan kii alle subxaanahu wa tacaala ma allaha raxmaanka ah ee iskale naxariista guudi uu la hadli jirayo naftii keen xilligeedii baa la gaadhay dabadeedna xadiidku wuxuu leeyahay nebi muuse waa feedhay oo il buu ku dhuftay bo dhaawac buu noqday dabadeedna malakii ayaa wuxuu ku noqday allah subxaanahu wa tacaala oo wuxuu yidhi rabbiyow addoonkii aad ii dirtay nabar buu isoo gaadhsiiyey waana diidan yahay inuu geeriyoodo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu soo faray malagii oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa thawr ama dibi gacantaada saar deetana wax allaaliya wixii tin kaa soo raaca markaa dibiga timihiis ama dhogortiisa wixii kaa soo raaca mid kastaba sanad ku dhufo oo sanad ka dhiga yacni haddii 1 milyan oo dhogor ah ama timo yaryar ah ee kaa soo raacdo 1 milyan oo sannadood baad ku dhufanaysaa iyo sanad bay u dhigmaysaa yacni tin kastoo kaa soo raaca sidii baa loo sheegay nebi muuse wuxuu dhahay maxaa xiga marka waxaa la yidhi dee naftaad keenaysa wuxuu dhahay haddaba haddii kulli baa naftay keenayo markaan cimri dheer aan noolaado iminkaba iga qad ayuu yidhi deetana allah subxaana wa tacaala ayuu ka baryay nebi muuse inuu dhulka barakaysan oo ah dhulka falastiin baytulmaqdiska meel u dhow inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ku aaso meydkiisa u geeyo nebi maxamedna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam meel yacni ramyat xajar meel dhagax laga tuuro ayuu u jiraa dhulka barakaysan ee falastiin haddaan jooga halkaana waan idin tusi lahaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasina waa xadiid saxiixo labada imaamba ay soo saareen dabcan xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa iyo xadiidkii horeba in bani aadamka ama insaanku uu necab yahay geerida ma jecla inuu dhinto ma jecla yacni in uu malakul mawtka uu la kulmo laakiin haddana xadiid kale ayaa jira sidee bay isu waafaqaysaa xadiidkii kale lahaa uu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah ciddii jeclaata inuu alle subxaanahu wa tacaala uu la kulmo rabbina wuxuu jeclaada la kulankiisa waman kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ah cidda nacabaata ee karaahiyeysata inay alle la kulanto allana kaa waa nacab yahay la kulankiisa subxaana allah waa xadiid marka xadiidkaas
iyo xadiidkani miyaana iska hor imanayn? maya, isla xadiidka ayaa inoo fasiraya oo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa mu'minka ahi sida ma aha, saa u fahmaysaan maaha. yacni marka nafta laga qaadayo, ruuxii naftii markii laga qaadayo oo malakulmowtkii madaxiisa uu taagan yahay, ayaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu u idmayaa malaa'igtiisa meesha ishiisu ay gaadho inay fadhiistaan. subxaana allah. marka araggiisa meesha ugu dheere u arki karee 1 kilomitir 2 kilomitir dhan kastaba malaa'ig wejigoodu ay nuurayso ayaa fadhiisanaya oo soo dhoweynaya ruuxdan daahirka ahee wanaagsan. dabadeedna ruuxii wuxuu jeclaysanayaa markuu arko acmaashiisii wanaagsanayd, markuu arko khayrka iyo barakada sugaya, markuu arko in janno loo wado, wuxuu jeclaysanayaa inuu la kulmo rabbigii abuuray ee unkamay ee sawiray. markaasuu xilligaasuu markaa alle subxaana watacaala markuu jeclaysto addoonku inuu ilaahay la kulmo, allana waa jeclaanaya la kulankiisa. xadiidku macnihiisu waa sida. dhanka kalena ama cagsigeedana, ruuxii gaalka ahaa marka uu dhimanayo, malaa'ig baa la keenayaa wejigoodu ay madowdahay oo meel allaaliya meeshuu ishiisu ay gaadhaba malaa'igtaas u arkaya. cabsi badan iyo argagax badan, warwar iyo walbahaar baa u hadhay ninka ama gabadha. ilaahay baynu ka magan galnay khaatimada noocaas ah. dabadeedna qofkii wuxuu necbaysanay oo uu karaahiyeysanaya inuu ilaahay la kulmo, allana waa karaahiyeysanaya waa nacaya inuu la kulmo ruuxa sidaas ah. walciyaadu billahi ya latiif. ilaaha latiifka ahee dhowrsonna waan ka magan gelayna xaaladda sidaas ah. marka xadiidku saasuu inoo tilmaamaya. markaas ma diidayaan haddii aynu nidhaahno bani aadamka waxaa ka mid ah dabiicadiisa ama fidradiisa inuu necab yahay dhibta, inuu necab yahay geerida. waa saxiix, waa wax wanaagsan, waa wax lala yaqaano dabiicadda qofka bani aadamka ah. laakiin ruuxii wuxuu jeclaanayaa sida xadiidka nabigeenuba uu tilmaamayo marka uu dhimanayo nafta laga qaadayo, markuu arko acmaashiisii wanaagsaneed loo soo bandhigo, markaas ayaa looga jeeda. waxaa kaloo jiray xadiid kale oo isaguna cajiib aha oo inooga waramaya malakulmowtka calayhi salaam iyo hawshiisa siduu uga soo baxo. xadiidkana waa xadiid kaloo cajiiba oo duruqyo badan ku yimi. dabcan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu ahaa boqor oo alluu weydiistay subxaanahu watacaala mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi, yacni boqortooyo aan u habboonayn oonan u cuntamin buu yidhi rabbiyo subxaana watacaala cid aniga iga dambaysa ay sii. allana waa siiyo, waa ku manayst oo galladiisa iyo fadligiisa ayay ahayd in la siiyo boqortooyadaas iyo hantidaas iyo awoodda intaa leeg. marka nin ka mid ah dadkii ag fadhiisan jiray ama wasaaradiisii ama dadkii wax ka dhagaysan jiray nebi sulaymaan calayhi salaam ayaa waxa u soo galay malakulmowtki xalqadii oo la fadhiyo ama golihii ama goobtii nebi sulaymaan uu fadhiyo iyo ninkii wasiirka ahaa ama u adeegi jiray nebi sulaymaan calayhi salaam. marka ninkiibaa soo galay, wuu fadhiistay. marka ninkii wuxuu eegay oo uu ku dhagagay, yacni ishiisu aada ugu gubay oo uu aad buu u eegay ninkii wasiirka ahaa ama u adeegi jiray nebi sulaymaan calayhi salaam. ninkii wuu argagaxay, waa cabsadayoo baqdin baa gashay. wuxuu dhahay nebigii ilaahay oo sulaymaanow, ninkani muxuu iga fiirinaya? marka ninkii waa baxay. deetana nebi sulaymaan wuxuu ku yidhi miyaad garanaysaa ninka kan? wuxuu yidhi maya. wuxuu yidhi waa malakulmowt. subxaana allah, ma malakulmowt ba? hayo waa malakulmowt. ninkii cabsiyo baqdin baa gashay. wuxuu dhahay nebigii ilaahay oo sulaymaanow, dabayshaada iyo riixda ama dabayshaas iyo wuxuuni saaro meesha ugu fogee dhulka hindiya ah gee. subxaana allah, waqtiyada meelihii ugu fogaayee la yaqaan. nebi sulaymaan calayhi salaam riixdiisii ama dabayshii uu adeegsan jiray buu ku daray. waxaa la geeyey ninkii buuraha hindiya, himilaayo ama everest ama dhulkaasunbuu tegay ninkii. subxaana allah, malakulmowtkii halkii buu ugu tego, naftunbuu kaga qaad. maalintii ku xigay ayuu soo galay ninkii malakulmowtka ah calayhi salaam
deetana nebi sulaymaan baa weydiiyey oo wuxuu ku dhahay yaa malaka almowt shalay toole ninkii halkan ila fadhiyey si aad iyo aad ah baad u eegtood u fiirisay waanad ku dhagagtay maxaa waay sababtu maxay ahayd wuxuu dhahay malakulmowtka calayhi salaam nebigi ilaahayow dhegayso ninka kan ilaahay baa wuxuu amray oo faray inaan ruuxdiisa ku qaado oo aan nafta kaga qaado buuraha hindiya muddo yarna halkanuu fadhiya oo waxaan la yaabanaa ninkan yaa qaadaya oo geenaya buuraha hindiya waan tegay buu yidhi wuxuun baan u imi ninkiiyo ii fadhiya meel oo isugaya naftina waan ka qaaday subxaana allah laa ilaaha ila allah walidaalik baa waxay dhahaan soomaalidu xabaashu ma socoto qofkaa socda meeshaad ku dhimanaysid ilaahay baa og allana waa kilah subxaana watacaala yani wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafna ma garanayso meesha ay ku geeriyoonayso adigu waad soconaysaa meeshii aad ku geeriyoonaysa ama aad ku dhimanaysay baad tegi malakulmowtkiina halkaasunbuu kaa helayo naftaadunbuu kaa qaadi oo alle subxaana watacaala baa qadaray oo qoray ruux kastaaba meesha ay ku dhimanayso culammada qaarna waxay dhahaan malakulmowtku maalin kasta iyo habeen kastaba guri ka mida dhulka ku yaalla ama adduunyada ku yaalla ma jiro waa maraa markuu maro ciddii markaa wakhtigoodii ay ka buuxsantay ee uu alla subxaana watacaala u idmay inuu nafta ka qaadunbuu ka qaada waa maalintii 2 jeer buu maraa subxaana allah laa ilaaha ila allah wuu marayaa ruuxdunbuu ka qaaday ilaahayo subxaanahu watacaala ilaahay baanu ka baryaynaa in uu inaga yeelo kuwa markuu malakulmowtka u yimaado farxa ee ku bushaaraysta waxa wanaagsan ee sugaya ayaynu ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa ilaahayna kuma cusla inuu dhammaanteen u inoo naxariisto oo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisana inaga kor yeelo oo inaga badbaadiyo dhibka adduunya iyo dhibka aakhiro oo inaga kor yeelo fitnada dhacaysa adduunyada ka dhacaysa oo inaga ilaaliyo dembiyada iyo macaasida wixii gaf iyo dembi iyo qalad naga dhacay inuu alla subxaanahu watacaala inaga dhaafo ilaahay kuma cusla ilaahay intaasaynu weydiisanayna inuu ilaahay raalli inaga noqdo oo ina barakeeyo oo inoo barakeeyo xoolaheenna iyo risqigeenna iyo ubadkeenna iyo waalidkeenba iyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan rabbigeen subxaanahu watacaala waxaan kaloo weydiisanaynaa inuu dadka muslimiinta uu quweeyo oo uu awood u yeelo oo cisiga iyo sharafta islaamka uu soo celiyo alle subxaanahu watacaala waxaan kaloo weydiisanaynaa inuu soo xoreeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu xoreeyo baytilmaqdeska oo yahuuddaas nijaasta ah uu ilaahay subxaanahu watacaala ka xoreeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu qulubta dadka muslimiinta ah isu keeno oo dad mid ah oo midaysan inuu ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay weydiisanaynaa waxaan kaloo ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu xabiibkeeni moxamed ee aynu jeclayn inuu inaga yeelo kuwa la rafiiqa allahuma salli wasallim wasallim allahuma salli wasallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته